Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada cashirka maanta cashirka maanta waxa weeye lesson 6 laakiin inta aanan lesson 6 u gelin waxaan doonayaa wixii aanu kusoo baranay lesson 5 ama cashirka shanaad in aanu review ku samayno ama dib u eegis waxaanu soo baranay verb to be ficilka sheegaya ahaanshaha verb to be ficil sheegaya ahaansho waxaanu soo niri marka uu present yahay ama waqti xaadirka sidan ayaa u kala qaataan ama loo kala isticmaalaa first person waxaanu niri marka uu kelida yahay first person singular marka uu singleka ama kelida yahay waxaa la isticmaalaa I-dana waxa ay qaadataa am I am waxaan ahay marka uu yahay second person singular ama qofka labaad oo keli ah qofka labaad waxaa laga wadaa qofka lala hadlayo you are bay qaadanaysaa you are marka ay tahay waqti xaadirka saddexdan waxaa la isku yidhaahdaa third person singular ama qofka saddexaad oo keli ah ama qofka laga hadlayo waa he isaga she iyada it waa xayawaankii ama shayaashii wixii aan nafta lahayn ama aqliga mid walba wuxuu u qaadanayaa is he is isaga waxa weeye she is iyada waxa weeye it is shayga ama xayawaanka waxa weeye first person plural qofka koobaad oo ah jamac ama qofka hadlaya oo jamac ah ama koox waxaa la isticmaalayaa we waxay qaadanaysaa we are waxaanu nahay qofka lala hadlayo ama second person plural oo qofka labaad oo jamaca ama qofka lala hadlayo oo jamaca idinka oo kooxa ama jamaca marka la idinla hadlayo waxaa la leeyahay you are idinka waxaad tihiin third person plural aan idhaahdo meeshan waa third person plural qofka saddexaad oo jamaca ama qofka laga hadlayo qofkaasi ama meesha uu joogi karaa ama uu ka maqnaan karaa laakiin isaga ama iyada laga hadlayaa waxaa la leeyahay qofka saddexaad ama waa qof laga hadlayo waxay qaadanayaan they are iyaga waxa weeye marka he she iyo it marka jamac ahaan looga hadlayo they ayaa la dhahayaa iyaga they marka jamac la leeyahay waa hal wax ka badan hal qof wax ka badan ama hal shay wax ka badan jamac ayay noqonayaan marka taasi waa marka waqtiga presentiga ama waqti xaadirka marka ay noqoto pasti ama waqti lasoo dhaafay marka laga hadlayo waxay qaadanaysaa I was waxaan ahaa you-da waxay qaadanaysaa you were saddexdan he she iyo it mid walba wuxuu qaadanayaa was oo waxaa la dhahayaa he was she was it was we-da annaga waxay qaadanaysaa we were waxaan ahayn ama waxaan ahaan jirnay we were you-da oo jamaca idinka oo jamaca waxay qaadanaysaa were they iyaga oo jamaca hal qof iyo wixii ka badan waxay qaadanayaan hal qof wixii ka badan aan idhaahdo they were marka intaasi waa muraajacadii ama reviewgii oo lesson 5 hadda waxaan u geli doonaa lesson 6 maanta cashirka waa lesson 6 cashirka lixaad
Casharka lixaad maanta wuxuu ku saabsan yahay irregular verbs. Irregular verbs. Verbs waanu soo baranay waa ficilo. Irregular waxa weeye aan joogto ahayn. Shayga marka uusan joogto ahayn ayaa la yidhaahdaa irregular. Shayga haddii uu dhaco maalin kasta ama isbuuc walba ama bil walba waqti isku mid ah waxaa la yidhaahdaa regular waa joogto. Laakiin hadda IR ayaa laga hormariyey oo waxaa la leeyahay joogto ma aha. Marka waxaa laga wadaa ficiladani marka ay isbedelayaan oo ay iska bedelayaan waqti xaadirka oo ay isku bedelayaan waqti lasoo dhaafay higaadooda ayaa la bedelaa. Marka joogto ma aha oo ingiriiska inta badan ficiladiisa ama verbiskiisa waa regular waa joogto. Waqti xaadirka iyo waqtigii lasoo dhaafay inta badan wax isku mid ah ayaa lagu daraa. Laakiin waxaa jira oo yacni higaadooda isma bedesho. Laakiin waxaa jira ficilo kooban oo markaasi ay higaadooda isbedesho. Kuwaasi waxaa loo yaqaanaa irregular verbs. Marka kuwaas gooni ayaa loo bartaa. Aadna uma tiro badna. Marka maanta waxaanu baranaynaa irregular verbs. Ficilo aan joogto ahayn oo waqti xaadirka markay iska bedelayaan oo wax lasoo dhaafay ay isku bedelayaan higaadooda la bedelo. Marka waxaa la leeyahay meeshan definition ayaa nala siinayaa ama fasiraad ama sharaxaad. Irregular verbs ficilada aan joogtada ahayn change waxay bedelaan they are spelling. Spelling waa higaad. They are spelling higaadooda ayay bedelaan when goorta they iyaga tell ay sheegayaan ama ay ka hadlayaan about wax ku saabsan past wixii lasoo dhaafay. Irregular verbs ficilada aan joogtada ahayn change waxay bedelaan their spelling higaadooda ama qoraalkooda when goorta ay they tell ay sheegayaan ama ay ka hadlayaan about wax ku saabsan past wixii lasoo dhaafay. Present kuwan groupkan ku jira ama linekan waxa weeye present waqti xaadirka ayay ka hadlayaan. Kuwa dhinacan jirana waxay ka hadlayaan past wixii lasoo dhaafay tagto. Present waxaa la yidhaahdaa waa joogto af Soomaali haddii lagu fasiro. Pastina waxa weeye tagto. Go go waa aadis. Go waa aadis. Go marka ay noqoto tagto ama wax lasoo dhaafay went ayay isku bedeshaa. Went. Go waa aadis. Waan aadaa haddaad leedahay go ayaad isticmaalaysaa. Waan tegey haddaad leedahayna went ayay noqonaysaa oo waan tegey. Goes goes. Go iyo goes waa isku macno. Laakiin gooda waxay qaadataa oo ay la shaqaysaa first person, second person. Qofka koobaad ee hadlaya iyo qofka lala hadlayo. Waa I, you, we, iyo they. Goes waxaa qaata he, she, iyo it. Marka I go waan aadaa. You go waad aadaa. We go waan aadnaa. They go way aadaan. He goes isaga wuu aadaa. She goes iyada way aadaa. It goes it xayawaan ayaa laga wadaa. Xayawaankana wuu aadaa. Do 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 waa samayn ama falid. Do doodana waxaa qaata I iyo you iyo we iyo they.
I do waan sameeyaa. You do waad samaysaa. We do waan samaynaa. They do iyaga way sameeyaan. Doesna waxa qaata he, she iyo it. He does wuu sameeyaa. He does isaga wuu sameeyaa. She does iyada way samaysaa. She does iyada way samaysaa. It does it does xayawaankii ama shaygii aan nafta lahayn wuu sameeyaa. It does. Marka go waxay isu beddelaysaa went. Marka haddaad leedahay waan tegey waxaad leedahay I went waan tegey. You went waa tagtay. We went waan tagnay. We went waan tagnay. They went way tageen. They went way tageen. Do'da waxay isu beddeshaa did marka ay noqoto tagto ama wax laga soo tegay. I did waan sameeyey. You did waad samaysay. We did waan samaynay. They did way sameeyeen. He'dii iyo she'dii iyo iddiina iyagana did ayay dastii did ayay isu beddelaysaa oo he did, she did, it did ayay noqonaysaa. Examples tusaalayaal waxaan dhihi karaa I go to work every day. Maalin kasta waxaan aadaa shaqada. I go to work every day. You go to work every day. We go to work every day. Annaga waxaan aadnaa shaqada maalin kasta. He marka ay noqoto goes ayaa la dhahayaa markaas. He goes to work ayaa la dhihi karaa. Shaqada ayuu aadaa every day maalin kasta. He goes to school ayaa la dhihi karaa. Iskuulka ayuu aadaa. He goes to school every day maalin kasta wuxuu aadaa iskuulka. She goes ayay noqonaysaa. She goes to school every day. She goes to school every day. Waxaa la dhihi karaa tan waa presentigii ama joogtadii ama waqti xaadirka. Marka ay tahay past ama tagto wax laga soo tegay waxaa la dhahayaa I went to work yesterday. Shalay waxaan tegay shaqada ama waxaan aaday shaqada. I went to work yesterday. She went waxa ay tagtay to school yesterday. Shaqada ayay tagtay shalayto. Waxaad dhihi kartaa I go to the gym. Waxaan aadaa gymka. I go waxaan aadaa to the gymka. Marka goodan waxaa la yidhaahdaa waa ficil oo habitual ah. Habitual waa wax mar kasta dhaca. Habitual waa wax mar kasta dhaca oo yacni dabeecad ku ah. Marka I go to work haddaad tiraahdo shaqada ayaan aadaa taas macnaheedu waxa weeye waa wax mar kasta dhaca oo waad aadaa. I do my work every day. Maalin kasta shaqadayda waan sameeyaa. I do my work every day. Maalin kasta shaqadayda waan sameeyaa. You do your work every day. Adigana maalin kasta shaqadaada waad samaysaa. You do your work every day. Adigana shaqadaada maalin kasta waad samaysaa. We do our work every day. Maalin kasta shaqadeenna waan samaynaa. She does. She marka ay noqoto ama he does ayaa la raacinayaa. She does way samaysaa. He does wuu sameeyaa. Marka intaas
si fiican u baro labadaasi ficil go iyo do. Isku day labadaasi ficil go iyo do sida marka ay joogtada yihiin ama presentiga loo isticmaalo iyo marka ay tagtada yihiin ama pastiga sida ay isu bedelaan. Inta aanu cashirka leh dib ugu kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.